quwado shisheeye hana soo dhex galaan waxa weeye waa dhabar jab weeyaan arrintaasi waxay wareemaysaa qarannimadeennii iyo intii yareedeenna isku dhoobdhoobnay in isku geegeynay ayay dhabarka ka wareemaysaa waa arrin aan munaasib ahayn aan lana aqbali karin waxa weeyaan arrintaasi in laga tanaasulo shirka oo ku baaqay madaxweynuhuna shuruud la'aan in looga soo qayb galo laakiin nimanka kan hadda macnaha xamar nabad ma aha niman guryaha ay degan yihiin nabad baa macnaha ku jooga ma aha sababta ay tahay in walba gobolka uu joogo ama uu leeyahay waa maamulaya geedkaas u muuqanin macnaha uu ku tagi karo ama baabuur ku tagi kara male ka mid ahay dowlad goboleedyada inaan caasimaddu aysan shir lagu qaban karin oo maaragtay shaki la geliyey nabadgelyadeedii waxaa kaloo og tihiin shirarka lagu qabtay intay tara la-eg yihiin ilaa dhowr dowladeedaa lagu dhisay waad la socotiin shirar kaloo caalamiyaha lagu qabtay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexana inta ay ku shireen tirsi ma leh waxaad kaloo ogtiin inay ayagu degan yihiin dowlad goboleedyada madaxdeedu waa degan yihiin caasimaday degan yihiin waxaa marka wax lala yaabaa marka la degan yahaana nabad waayo marka lagu shiraana nabad maaha iyada lafteeda waxay rabtaa su-aashaas in la isweydiiyo waxaan marka borotaysta ka qabnaa oon diidanahay in shaki la geliyo nabadgelyada xamar ama muqdisho xamar waa nabad waa lagu shiri karaa horaa loogu shiray dowladaa lagu dhisay ammaan laysku halay karo oo lagu shiri karo ka jira xamar taas qodob waa qodobka kaleeto wuxuu ahaa inaan u baahannahay gacan saddexaad taasina nama qabato waxayna ku tahay dhabarwareen madax banaanida iyo dowladnimada qarannimaday dhabarwareen ku tahay ayadana sax ma aha waa kasoo horjeedna haddaan nahay odayaasha dhaqan si aad og tihiin dowladdu waxay leedahay instituushino badan ay leedahay aqal saraa jira baarlamaanaa jira oo aqalka hoose ah odayaal dowladda aas-aaskeediia oo markii horeba ayagu soo unkayaa jira oo ku filan wixii loo diro oo nabadda ku saabsan gacan saddexaad oo kasoo gudubnay 2012 inaan hadda u laabanahay marka waxaa weeye waa tacaddi nagu tahay mana ogolaa karno labadaas qodob ayaa kamid aheyd communiquega ay soo saareen dowlad goboleedu sidaasaan marka odayaasha dhaqanka haddaan nahay labadaas qodob nooma qalmaan waxaan marka rabnaa shirkan inaan ku diidno dhan labadaas qodob meesha laga saaro waxaa kaleeto aan ogolnahay inaan ka saacidno nabad soo celinta ama mid siyaasad ha ahaato ama mid degaan ha ahaato ama mid kale ha ahaato beri waxa la wixii nabadgelyada ku saabsan waxa meesha fadhiyahay waa nabadoono magacoodu waa nabadoon shaqada meeshay ku leeyihiin waxa weeye markii wax khaldamaan inay saxaan waayo ay waxaas meeshooda ku soo celiyaan in la howlgeliyo nabadoonada iyo odayaasha dhaqankana oo dowrkoodii loo soo celiyana dowladdan ka codsanayna waxaa kaleeto aan ku daraynaa intaas dowladdu inay waxay la baxday magac la yidhaahdo nabad iyo nolol nabadda in lagu qabto gacanta midiga oo nabaddu aanay maaragtay muxuu ahaa shaki la gelin oo xoogga ay dowladdu isugu geyso na waa ka codsanaynaa oo dib u heshiisiintu ee active ahaato waxaa kaloo u sheegaynaa aan ka codsanaynaa inaan nabad madax banaanida iyo qarannimada Soomaaliyeed inaan ayadana shaki la gelin dowladdu waa inaysan shaki gelin madax banaanida iyo xornimada Soomaaliyeed kan dadka ay ku qosli rabaan waxay tahay dadka qaarkiisa Soomaalida waxay yiraahdaan cimriga reer geeldalah ku tusaa cimriga reer geeldalah ku tusaa winas wax walba arkaan wiligiis ma arkin
madaxweyne cimriga reerkeeda lagu tusaa waxaan ku wataa soomaalida waxay u noqotay waar maanta baryeen nin kasta soomaali waa ogyahay wixii dalkan ka jira horta cabir inay ka soo qaataan la rabaa walaalaheena oo saxaafadda gaarsiiyaan meesha aan ku shirayno intee waa maanta ciidamada amisom ama ciidanka dowladda miyaa waardiyeynaya ma waardiinaga saxaafadda garbahooda mala taagan yahay ciidama idinla socda khiyaarkeenaan ku nimid xaafadda kala gagadiisa xamarna waa ka soo baxnay qaar madiina ka yimid qaar kaarana ka yimid qaar wajula ka yimid haddana waxaan wada joognaa xamar bartamihiisa meesha waa ugu xuntaada lahaa number 4 aan joognaa hotel aan ku jirnaa amisom nama waardiyeyso ciidanka dowladda nama waardiyo aniga keligeena waardiyeyska marka nabad ma jirta dilila waxaan arkaynaa tii 93 dad u baahan 93 waxaa noo yimid ciidan dhahayo waxaan soo celinaynaa rajadiinaan soo celinaynaa rajo soo celi wixii naga raacay waa ognahay hal familan ku waysanahay oo aniga walaalahay ah meela ku dambeeya malayqaan madfaca ku dhacay waxaan noo keenay nagu riday ciidankii yiri samatabku idin samata bixinaynaa rajadiinaan soo celinaynaa marka ninkii maanta raba dhexdhexaad inuu ka noqdo ciidan shisheeye meeshii hore inuu loo celiyo rabaa meeshii horena odayaasha maanta waa ka soo jeedaan wax badan waa arkeen ammaankan waxaa markhaati kici doona haddii ay ilaahay ka cabsadaan saxaafadda meesha ay maanta taageerayeen aan ku wada hadlayno gurigeeda kaaga guday daliiraha guraha soo baxay ilaa intan waa soo mudayey istaag waxay yidhaahdaa ma arkin iska dhaaf nabadgelyo xumo oo laga socon laaya nabadgelyo xumo waxay ahayd hore aan soo aragnay walaalaheena waxaan leenahay dalka nabadaa ka jirta shir iska dhaafo waxayna doonaa lagu qabtaa waxyaaba ka waaweyn waa lagu qabtaa dalka markay ayagu dan leeyihiin waa lagu qaban karaa markay dan kala gaar leeyihiinna waa lagu qaban karaa waxaan ilaahay ka dhigan galnaa dowladda iyo ayagaba aan u sheegaynaa ciidan shisheeye ilaahay boogu soo celiyo kuwa loo joogana alla hadlan wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi xamar shir waa lagu qaban karaa waanaynu ku haynaa oo waa kananu fadhina saacan iminkaaba aynu fadhino mayd maxaa u dambeeyo ila kaa la sii sido waa inaganu fadhina waa shir weyn oo caalamiya waa dhuuxii ummadda soomaaliyeed waxaa meesha fadhiyaa marka waxaan qabaa shir gudaheed mid shir dibadki nooga yimaada iyo mid gudaha ka yimaadaba xamar in lagu qaban karo cid walbana ku qaban karto kaa intaasaan kaga baxayaa ka labaad waxa weeyaan waxaa la yidhi kala go waxa dhaama iska lulasho in la iska lusho ayaa dhaanta in la kala go-o waxaan leeyahay anigu waxa weeye waar gobashan ayaan dhigay ee aan isku nimaadno waa aan heshiina weeyaan ninku hadduu ku yidhaha waar gobol baa kuu dhigay ii kaale waxa weeye macnaheedu waxa weeye tafsiirkeedu wuxuu noqonayaa war aynu heshiino markaa shardi inaad ku xidhaa waxaan u malaynayaa in laga qurxbalaya arrintaa iyada ah maanta inaynu u yeedhanno innaga oo intaasoo sannadood burbursanayn oo balanbalsanayn oo dadkeenni qaxooti iyo dhibaato iyo rafaad adduunye u dhammaatay inaynu maanta innaga oo yabyab ku jirna aan nidhaahno haddana maanta quwado shisheeye hana soo dhex galaan waxa weeye waa dhabarjab weeyaan arrintaasi waxay wareemaysaa qarannimadeennii iyo intii yareedeenna isku dhoobdhoobnay aynu isku geegeynay ayay dhabarka ka wareemaysaa ay yimideen arrintaas iyada ah waana laga qaatay waana laga hadlay Soomaalidu inta soo tabaday ka hadashay iyadoo u dhan cid ka maqan jirin waxaa la wada ogyahay ama ay sheegeen in xamar oo ka mid yahay gobolada Soomaalida laakiin uu yahay magaalo madaxdii nabad xumo looga shiri waayo inaan ka jirin oo xamar oo nabad yahay oo lagu shiri karo taas waa qaadanay waxaa kaloo la soo saaray meesha in loo baahnayn gacmo shisheeye horta marka hore in ayaga loo jeediyo baaq nabadeed oo ah inay heshiiyaan oo walaaloobaan oo ay mugdi gelin midnimada iyo maaragtay dowladnimada Soomaaliya oo ka heshiiyaan arrintaas haddii ay dhici weyso dadka ayaga sameeyaa jooga mudulani ka dhisaa ka weyna leeyahay
dadka ayaga sameeyaa jooga oo wax ka halaabayeen haddii dowlad goboleed ka tahay hadday midda dhexa tahay ragga ayagu soo dhisay oo gacmahooda ku sameeyaa fadhiyaan haddii gacmo shisheeye soo geli lahaayeen waxay ka fadhiya oo dhexda ka qabanaya intaas ayaa maanta la go'aansaday sidaasaa la isugu yimiday ujeeddada shirka nuxurkeedu wuxuu ahaa in xamarna shir ku qabsoomi karo haddii gacmo loo baahdo kalantooda oo gelayana ay noqdaan kuwaan waxa gacantooda ku sameeyey oo wuxuu ay ka halaabayaan ee ciidan ibid nala sameeyey wixii shalay la sameeyey haddii khilaaf ka yimaado suubinta khilaafku waa ka dheeryahay iyadoo ziirahan ka soo bilowlasan samayn hadda khilaaf dhel hoo yimid waa la dhammayn karaa waxaana dhammayn kara odayaasha ibid sameeyeen oo gobollada la dhisay oo isteedyada sameeyey dowladda dhexana sameeyey fadhiyaan maanta waxgaradkii soomaaliyeed dhammaantood waxayna qaateen go-aankaas asaga ah